xirfado aan jeclaan lahaa in xilli hore aad barto laakiin hadda nolosheyda ku leh saameyn weyn. Xirfadda koowaad waxa ay tahay xirfadda graphic designer. Xirfadda graphic designer waa xirfad aad u ballaaran, leh software kala duwan. Xirfaddani waxa ay kuu fureysaa albaabaha fursadaha, waxaadna ku helaysaa shaqo, waxaana kuu baahan qof kasta iyo ganacsi kasta. Xirfadda labaad waxa ay tahay digital marketing, gaar ahaan social media marketing. Ganacsi kasta maanta waxa uu raadiyaa macaamiisha halka ay joogto. Macaamiisha halka ay joogtana waa social mediaha. Ganacsi kasta maanta akoomo waxa uu ku leeyahay baraha social mediaha kala duwan. Ganacsigaasi waxa uu u baahan yahay cid u sameysa xayeysiin si productiga ama alaabta cusub ee uu keenay uu u helo customer badan. Xirfadda saddexaad waxa ay tahay how to talk to anyone, sida loola hadlo qof waliba, sida loogu dhaadhiciyo fikradaha aad aaminsan tahay kambaniyada u shaqo doonanaysid, sida naftaada aad ugu sharixi karto kambaniyadaasi, sida waxa kugu jira aad bannaanka u soo saari karto adoo straight u hadlayo. Taasi waxay u baahan tahay barasho, waa inaad barataa. Saddexdani xirfadood waxa ay dhiseen nolosheyda, waxayna iga dhigeen qofka hadda aan ahay.